بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتي ذوك حنا برتدي يوتيوب كهنا جافول رمضان مبارك سوري دوادا بلسنا الكديا كعصب تاس بسكراب يسار ورا لا يبدأ إلى الدكتور بقول وكم هذا علنا يا ما أنت محايدين وذا اسكراب كان قروح ذو بدن ما شاء الله تبارك الله كسو دوادا سيدا أسمي انت waxaan ku haystaa baaqul insha Allah waxyaabii aan ka sameeyno maxaa kamid ah qaxwadan ama scrapkan oo kafeega ka samaysan sidoo kale tood Nescafe aan isticmaali doona asigana kafeega caadiga oo la cabo rose water aan isticmaali doona ama maa alward ama biyaha ubaxa sidoo kale waxaan isticmaalanaa malab ama honey ya magaciiga ma sha Allah tabarakallah sidoo kale baking soda isticmaalana hadii Allah uu dal raali ka noqdo faa'iidooyinka ay leedahay lama soo koobi karo insha Allah waan idin sharxi doonaa hadii Allah uu dal raali ka noqdo kirsilina inta ku haysta sidoo kale tood iyo liin dhanaan hal xabo oo liin dhanaan sidoo kale waxaa haystaa huruud iyo quse intaanu alaab qof walba uu yaqaan qof walba uu heli karaa insha Allah hadii guriga ku aalinayso maxaa ka helaysaa dukaamada alaabaha maxay ahayd cosmetics ka lagu gado sidoo kale qaando sokor isticmaali doona ugu horreyn marka waxaan ku soo darsanayaa halka qaando sokorta ahayd sidoo kale waxaan ku soo darsanaynaa insha Allah hal qaando oo buuxdo oo kafee kafeega caadiga oo la cabo waaye sidoo kale waxaan ku soo darsanayaa qusaha maxay qaando buuxdo ku soo darsanaa insha Allah hal daaw waxiriisa ka dhiman bacd waxiriis leeb ku jirbo intaas u dambeysay inta kale waa la isticmaalay marka waxaan ku soo darsanaa huruudda marka ma ka badinaay huruudda qaandada foodeeda ku daraa because huruudda waxay leedahay midab bixisaa ma fahantay midab oo jaale bixisaa marka jaalaha zaid inuu korka nooga noqdo ma rabo waxaa rabaa xoogaa yar iftiin siinaa bas inaan isticmaalno soo waxaa ku darsada qaandada haafkeeda hada jecesha waa ka badsan kartaa waxaa ku soo daray intaad sidoo kale malabkan waxa waay waa iska dhaafi kartaa haduusan ku aalin waxa waay muhiim ma aha sokor ha isticmaalona ma fahanteen soo malabkaasi tii ku soo darsaday sidoo kale waxa ku darsanayna insha Allah scrapkan wax scrap dhanba kana ka isticmaalo because anaaba scrap hadda sameeyno ma ahan walaabta hadda sameeyno scrap iyadaaba ahbo scrap dabiici ah oo la hubo oo la yaqaan waa ma fahanteen sidoo kale waxa isticmaalana kirsilin faa'iidadu leeyahay qof walba uu fahmi karaa waa kareem qadiimi ah oo waligiis la isticmaalo jiro ma sha Allah faa'iidiisana aysan isbedelin ma sha Allah tabarakallah sidoo kale waxa isticmaalaan liin dhanaanti insha Allah liin dhanaan waxa waaye korku waxa bakteeriyada iyo wixii oo jeermis iyo waxaan ku dhahay hadii oo ma sha Allah tabarakallah way ka baabiinaysaa unugyada jirka galaysa ma fahantay soo nadiifinaysaa sidoo kale waxa isticmaalanaa baking sodahan ma sha Allah tabarakallah faa'iidooyin badan oo soo aqriyo leeyahay insha Allah kaligiisa idinkaga soo sameeynaya maxay 10 kaamil oo dhameystiran waxa waay jirka wuxuu u taro iyo maxay sidoo kale ilkaha afka waxa uu taro ma sha Allah tabarakallah inaba caadi ma aniga waa iska dhayalsanaa badana ma isticmaalnabo badana waxa lagu darsadaa waxyaabaha oo adii rootiga iyo buskudka badana isticmaalana laakiin wallahi hadii aad baratid faa'iidadiisa ma joojinayso u xumbeynay fiiri korka marka scrapka asiga ay ku darto xataa korka waxa ka dareemaysaa xoogaa inuu cunayo because waxa dareemay in uu jirka galaayo oo jeermis waxyaabo uu ka soo fujinayo ma fahantay marka waxaan ku darsanayaa rose water ama biyihii ma wardiga ahaa marka jeermis ku dhahay ma aha inaadan qabaysanin ma aha inaa qof wasaq badan aad tahay ma aha inaa maxay ahaday laakiin waxa waay adoo maalin walba qabaysto haddana maxay ahayd bakisoodhadan alaabta isku dartay marka isticmaasho maaragtay waxa dareemaysaa in qabayskaaga hor waxba uusan ka jirin ma fahanto oo hadda qabayska aad qabaysatay uu yahay qabayska saxda ahaa oo lagu talagalay because saabuunta anaga Soomaaliinta badan isticmaalno waa saabuunta adag oo maxay caadiga shower gelka aad u fiican la isticmaal laakiin ma nugu badna anaga mana isticmaalno marka kareemkan ama scrapkan wallahi hadii abrat subhanallah ma sha Allah marka ko amarsid jirku waxa ka dareemaysaa juq wax ku dhahayn because of liinti iyo baking soodadii wixii dhamaaya jirka isugu tagaayo markaas ma sha Allah unugyada jirka maqaarku nadiifinaya liinna waa naqaana maqaarka si uu qurxiso uu nuuriso ma fahanteen marka ma sha Allah tabarakallah waxa sidoo kale idin sheegayaa
shukumankan yar oo lagu qabaysto muhiim waaye qofka inuu isticmaalo because of jirka bini'aadamka ee wuxuu ka dhigayaa nadiif aad u qurux badan oo sibiq ah hadda saabuun caadi isticmaalaysa hadda shower gel isticmaalaysa hadda iskaraabka isticmaalaysa mar walba oo qabaysanaysa aad kula talnaa inaad isticmaashiin alaabtan waxaa la lahaa iscadee dambi la'aan ma fahanteen هذا وكنا جعنتي إذا مرينا وحا ku cadeynayaan oo maqaarka ay ka dhigayaan ama jirkaaga dhibaatay u geysanayaan ma fahanteen laakiin wuxuu ku soo saarayaa maqaarka saxda ah oo adiga aad leedahay oo maxay ahaydey oo wasaqda ama jeermiska waxyaabahaas camal uu ka dahaaray uu ku soo bixinayaa ma fahanteen soo waa masti ina isbuuci hal mar aad ku qabaysato ama laba mar hadii aad heli karto aad ku qabaysato maasha Allah aad ku anfacaya ani ahaan hadda miihi dadka daawada isticmaal iskaraabka dadka daawada isticmaala hadii qubays caadi ah isticmaalayaan uu ka nadiifinaa uu iska anfaca laakiin iyaga sheekadooda waa wax kale maahan oo qof kiimika isticmaalayo asaaba dar alla maxay ahaydey korkiisa maqaarkiisa dhan degay laakiin ka maqaarna ma ka dajinayo maasha Allah tabarakallah maqaarkaaga iyo nadiif kaaga dhigaya korkaaga quruxda badnaa waana kula talinay gabdhaha inay kiimikalka iska dhaafaan jir qurux badan aan leedahay oo maxay ahaydey bunne wala maqaarkeena anaga dad badan aan raadiyo sidii ku heli lahaayeen ma fahanteen laakiin anaga maclasaf waxa waay waa ka cararnaabo marka maasha Allah tabarakallah gacanteeda hadda ku baroobayno yaa nadiif iga soo dhigay waa soo dhaqay markii aan soo dhaqan jirkayga saano ku soo baxa u jeediyo quruxda badan leh ma fahanteen adoo is cadeyneen oo maxay kiimikaal isticmaalin qarash badan oo san ka bixin wax yar oo nadiif ah dambi dhibaatana aan ka soo gaarin maqaarkaaga nadiif kaaga dhigay in isticmaasho way fiican tahay kaza jirkayga saas quruxda badan oo igu soo baxay dhac kreemkaaga hadhoobta iska marsan karsaliinkaaga ama كريم عادي وكلا دا استعمال داع اسكو سيسانيسا marka qubays ka soo dhacdid ama qubayska ka soo baxdid ma sha Allah tabarakallah qurux iyo waxaan ku dhaca caafimaad maqaarkaaga ku nadiif ah maqaarka adiga aan lahayd oo saxda aha marka ma sha Allah inaad tijaabisiin ciida ka hor idin maxay idin kula dardaarma soo dhawaada